ganacsi online waxaad ka faa'iideysaa toddobadan qodob kow horta ganacsi online haddii aad bilowdo nooc walbaba ha ahaadee waxaad ka faa'iideysaa qodobka koowaad waxa weeye kharash bilow oo yar macnaha kharashka aad ku bilaabi karto ganacsi online waa mid aad u yar runtii ganacsi online wuxuu doonaa ha ahaado ama ha noqdo inaad badeeco kasoo iibsato suuqyada Alibaba iyo Shein ama ha noqdo inaad koorsooyin online ku iibiso ama ha noqdo inaad website-yada iyo dadka u samayso ama inaad baraha bulshada u maamusho ganacsiyada ha noqdo ganacsi online marka koowaad oo aad bilaabayso horta wuxuu kaaga baahan yahay kharash aad u yar marka kharashka aad ku bilaabayso aad buu u yar yahay waa faa'iido laga heli karo ganacsi online haddaad tiraahdo ganacsi aan waxaan samaynayaa toos loo furaya wuxuu kaaga baahan yahay kiro wuxuu kaaga baahan yahay koronto wuxuu kaaga baahan yahay waxa weeye de kharash buu kaaga baahanaya waxa laga yaabaa bishii 300 400 dollar in ay kugu noqdo ama 200 dollar inuu kugu noqdo korontadii iyo kiradii inay kugu noqoto laakiin ganacsiga online ka ahi kharash aad u yar buu u baahan yahay kaliya marka aad bilaabayso koronto iyo kiro midna kaaga ma baahna lambar laba waxaad ka faa'iideysaa dhaqaale ballaaran baa laga heli karaa suuq maadaama aad dad badan oo meesha aad joogto aan joogin ay ganacsigaaga arkayaan oo ay wax ka iibsan karaan runtii suuq aad u ballaaran baad helaysaa suuqii aad heli lahayd haddii ganacsi aad ka furto meel location kaliya meesha aad ka furto oo kaliya aad sugayso qof meesha jooga inuu kugu soo leexdo ama wax ka iibsado laakiin ganacsiga online ka alaabtaagu meelo badan bay gaari kartaa wadamo badan bay gaari kartaa runtii alaabtaadu meelo badan bay intay gaartaa faa'iido fiican ka samayn kartaa adigoo ganacsi ku leh Hargeysa ama Garowe ama Muqdisho ayaa magaalooyinka Soomaaliya oo dhan alaabtaada laga soo dalban karaa laga iibsan karaa wadamada dariska laga iibsan karaa marka suuq caalami ayuu ku furayaa marka ganacsi online inaad bilowdo qodobka saddexaad oo ka faa'iideysaa waxa waqti flexible ah waqtiga adigu aad rabto ayaad furaysaa waqtiga rabto ayaad ma aha wax inta subaxii u kalaado laga rabo albaabka inaad furto albaabka inaad soo xirto inaad laakiin xilliga adigu aad chance u hesho ayaa ganacsiga online ka xayeysiintaada saarsanaysaa xilliga aad chance u hesho ayaad waxa weeye ganacsiga marka waxa aad ganacsanaysaa marka waqti kaaga ma baahna marka waqti go'an waqti adigu marka aad awoodo ama waqtiga marka isbedel xilliga aad rabto ayaad ka shaqaysan kartaa marka suuqa online ka waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah qodobka afraad lacag joogto ah baad ka heli kartaa tusaale ganacsi online hadad bilowdo waxa laga yaabaa adigoo hurda in dhaqaale ku socdo tusaale qof waxa laga yaabaa YouTube buu bilaabay YouTube kaasi muuqaal buu soo dhigay sanad ka hor ama 5 bilood ka hor muuqaal uu soo dhigay waxa laga yaabaa in dad wali ay daawanayaan wali marka Google AdSense uu lacag ka helayo waxa laga yaabaa qof website buu sameeyay website kaas xayeysiin buu ku xirtay maqaalo ku soo qoraa waa blogging waxa laga yaabaa laba bilood ka hor qoraal uu qoray ama article uu qoray in wali alanka la akhrisanayo oo lacag uga socoto isagoo hurdo in lacag u socoto marka faa'iidada laga helo way lacag joogto ayaad ka helaysaa oo passive income ku noqonaysa oo lacag marka adigoo shaqadaadii kala wata ayaa tan aad helaysaa oo ku kobcaya ganacsiga online ka ahi faa'iidana aad ka samaynaysaa lambar shan waxa ka helaysaa xirfado oo maadaama aad ku jirto marka ganacsi online maalin xirfad cusub baad baranaysaa haddaad YouTube leedahay YouTube adigoo leh dad badan ay kugu soo xirmeen waxaad marka aad e-commerce oo kala alaabtaada dadkii aad u soo bandhigi kartaa ganacsi baad ku sii bilaabi kartaa marka hal ganacsi online oo aad bilowdo wuxuu ku suurtagelinayaa inaad aqoon badan iyo xirfado badan aad sii barato ganacsiyo kale inaad sii yeelato sidoo kale lambar 6 waxyaabaha heli karto waxa kamid ah fursad ganacsi oo kala duwan kii hore waxay qodobka shanaad xirfadaha ayaa horumarinta xirfadaha kor bay u kacayaan qodobka lixaad waxa weeye fursad ganacsi oo kala duwan ayaad helaysaa tusaale ganacsi kala duwan baad gali kartaa adigoo hal ganacsi ku jira ayaad wax bilaabi kartaa ganacsiyo kale maadaama aad noqonayso qof marka waxa weeye aqoontiisa iyo khibrad maalinba aqoon cusub baranaya qodobka toddobaad ee ka faa'iideysta ganacsi cusub waxa weeye waxa kordhaya sumcadda iyo network xiriirka dadka la leedahay sumcadda dadka ku dhex leedahay aad bay runtii u kordhaysaa mar lagu barto dadku had iyo goor ma iibsadaan xayeysiin ma iibsadaan wax iibsadaan aqoon qofku aaminaad bay iibsadaan qofka markuu rabo inuu wax ka iibsado wuxuu leeyahay maxaan kugu aaminaya maxaan kugu kalsoonaan karaa marka had iyo goor maadaama aad ganacsi online marka aad bilowdo online ka ay tahay dad badan ay ku arkaan qofka maanta ku arka biri maanta wuxuu ka iibsado wax laga yaabaa biri inuu ka iibsado biri hadduu ka iibsado macmiil kugu noqdo wax dama oo aad hayso oo ka helay ka iibsanaya mar buu ku bartay marka waa faa'iido fiican bay leedahay marka waxa kordhaysa sumcadda iyo network sumcadda dadka la leedahay iyo xiriirka dad yowga la leedahay aad bay runtii u kordhaysa marka toddobada qodob ayaad ka faa'iideysaa ganacsi online aad bilowdo
runtii ganacsi online inaad bilowdo ganacsiga online waa fara badan yahay youtuber baad noqon kartaa qof blogging baad noqon kartaa waxaad kasoo adeegan kartaa suuqyada Alibaba iyo Shein adoo gurigaaga jooga intaad alaab suuqyada kasoo iibsato ayaa adoo gurigaaga jooga Facebook iyo Instagram iyo TikTok iyo ku xayeysiin kartaa qofku markuu ka soo dalbado haddii tusaale ahaan adoo jooga Garowe oo kale waa qof jooga Hargeysa jooga ka soo dalbaday alaabtii waxa leedahay sheegan waxaan siinayaa $10 $2 waxa ku soo darsataa delivery-ga lagu soo dhiibay $12 soo dirso qofkii baabuurta si socda ugu sii dhiibaysa saasa ku ganacsanaysa adigoo aan korota kugu socon leer kugu socon wax kale kugu socon marka koorsada e-commerce-na waa ku diyaarinay waa ku diyaar koorsada e-commerce oo lagu baranayo sida suuqyada Alibaba iyo Shein looga soo adeegto sidoo kalena suuqgeynta loo sameeyo haday noqoto Facebook iyo sida xayeysiinta loo sameeyo Facebook baa loo sameeyo marka mar labaad iyo marka wad walaal ku soo dhawow galaysana academy runtii waa academiyad aad ku baran doonto aqoon kala duwan aqoon free ah iyo dabcan koorsooyin runtii kharashkoodu aad u yar yahay aad cilmi badan aad ka faa'iideyso marka walaal hadii aad muuqaalkan wuxuu ka heshay fadlan waxaan ka codsanaa YouTube-ka wax way subscribe noo saar Facebook-gana like noo saar meesha aad muuqaalka ka aragtay baraheena bulshada aad iyo aad mahadsantahay haddii aad doonayso koorsooyinkeena inaad ama koorsooyinkaan soo sheegnay aan qaadato ama koorsooyin kale aad qaadato nagala soo xiriir WhatsApp-ka akademiyadda. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.